Demo Furniture waxay bixisaa markaad ka iibsatid alaabteeda in ay guriga ku soo deliver gareyso si bilaash ah alaabta ku xirto guriga goobta ganacsi lagu keeno ama gurigaaga in meel lagu keeno alaabtaada ka iibsata u baahanta in lagu geeyo lagu xirxiro oo hadii gaari xaqiis ah leedana si bilaash lagu keeno kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka kaamirada gal ganacsi oo toddobaadkii 2 jeer in kaga yimaada kanaalka arrimaha dhaqaalaha ganacsiga ee gal ganacsi maanta wuxuu kaga imaanayaa mid ka mid ah xarumaha ugu mudan ee magaalada Muqdisho gaar ahaan kuwa iibiya agabyada guryaha iyo xafiisyada Diamond Furniture halkan waxaa ka heli kartaa dhammaan qalabyada xafiisyada iyo guryaha oo dhameystiran Diamond Furniture ayaa xarumo badan ku leh magaalada Muqdisho sida suuqa Bakaaraha oo ugu taala 2 xarun mid ku taal jidka shirkadaha iyo mid ku taal suuqa Khalifa dabka shaqaalaha iyo xaruntan oo barnaamijka idinkaga imaanaya oo ku taal Banaadir kaamirada gal ganacsi ayaa gudaha u gali doonta xarunta si ay indhihiina ugu aragtaan alaabaha aheyso Diamond Furniture markale ku soo dhawaada barnaamijka kaamirada gal ganacsi waxaan hadda gudaha ugu jirnaa xarunta Diamond Furniture oo iibisa alaabaha guryaha iyo xafiisyada waxaan idin soo bandhigi doonaa alaabaha ay heeso waxaan inoo sharaxaya Saciid oo kamid ah howlwadeenada Diamond Furniture alaabta hayna waxaa kamid ah sida meetingkan oo kale iyo kuraastan oo fisterka oo meetingka loo isticmaalo laba waxyaalood waa isticmaali kartaa in soo dhaweyn ka dhigatid inaan meetingka labadoodba loo isticmaali karaa meetingka waxa kale loo isticmaali karaa kuraaso oo office wareegsanayo kan ma wareegsanayo lugiisa marka waxa isticmaali kartaa meeting ahaan hadii aad rabtid waxa isticmaali kartaa meetingkaas ama waxa ka soo dhigi kartaa soo dhaweynta oo kale waa isticmaali kartaa asina marka kuraasta hayna waxa kamid ah kuraastan geemaha oo kale waxayna ayagana kuraasta oo kale hadda marka taasaan dhahay bartiisa ugu soo tagi kartaa wuxuu leeyahay aad dhabar ku daalo yani waxa loogu talagalay inaad saacado badan aad fadhisid aad isticmaashid yani sidoo qofku u daalin oo dhabar kaga daalin saacado badan waa fadhi kartaa hadii aad daashidna saa u fadhisid yani waa samaysan kartaa inaad ku seexatid oo abaar asan ilaa inta aad ka seexatid yani asoon kula dhicinin marka waka miiskan arkaysid waa xafiis waaye waa miis xafiis waaye oo dhameystiran fisterkiisa waa kana waiting oo qofka ku fariisanayay oo ku imaad ku soo booqdo kana office chair waaye waxa waaye waa kursiga waaye marka kana kala arbaajadii waaye ku shelfisti waaye waa gashan kartaa ayadoo 2 albaaba ama ayadoo oo 3 albaab buu heli kartaa waxa waaye waa kan dafirin كانوا كلهم صوفي واي حفيزك يا خيب كديجا كرتا وحواي وصوف السدكي واي حفيزك لو قلت له قلي ولا نديجو أيجنو هاينا أيجو دور نوعنا وكهينا كان هذا بيج واي مدو نورمال وهاينا مدو كسير وهاينا مركا أيجنو وكا كفتابل كانوا كلا نحضر دجنا الساعة يعني كان أنا دورنا وعلابتها كسنة كم التهاي مركا وكا waxaa kale alaabteena kamid ah alaabtana keenna isticmaalaan saliisada oo kale iyo waxa isticmaali karaan laboratoryga oo shabaarka loogu talgalay inay ku fariistaan waxa kale isticmaala TV-yada oo kale isticmaala marka waana ku gaabsana waana ku dheeraana marka ayagoo dhowr nooc ka hayna marka waka sidoo kale waxaan ka marneen arbor jerky oo dadka ku imaan waitingkii oo la dhigay hadii ahaa leeyahay istaalo kale hadii ahaa leeyahay hadii xafiis ahaa leeyahay waxa isticmaali kartaa waiting dadka ku imaado si ay kugu fadhiistaan marka ayagana waa hayna ayagoo dhowr nooc la hayna noocan oo hayna
nooca kale ka sii weyn waa haynaa marka asiga kala sii sareeyo noocyadiisa oo dhowr nooc kala baxana ayagana waa haynaa sidoo alaabta hayna kale waxaa ayadana ka marnayn guryaha oo caadiga jiif oo kale haddii aaleed hadday fadhi ahaa leed fadhigan oo kale hadda waa turki waaye wuxuu fadhiyaasha kale dheeryahay haddii ay ku imaado marti oo tiro badan waxaa samaysan kartaa asigaa furan kartaa oo waa ka dhigan kartaa sariir waa kana martida hadday kugu imaado oo guriga sii buuxsado waxaa samaysan kartaa inaa si sariir oo kalena oo isticmaali kartaa alaabta hayna ayadana way ka mid tahay alaabta hayna waxaa kale oo ka mid ah sida jiifafka oo kale jiifafkan oo kale hadda waa jiifafka weyn oo kale wuxuu ziyaadi ku yahay wuxuu wataa masaajuu wataa muraayadoo gaara oo isku daawo kartid oo dharkaaga ku labisan kartid wataa armaajo oo beebiga dharkiisa yar aad gashi kartid waa ku jirtaa armaajadiisoo kale hadda way weyn tahay ayadana muraayado badan ay leedahay waa waxaa waaye waa dhexdeeda waxyaabo badan kale ay kaga faa'iidaysan kale leedahay sharfisyo badan ay ku leedahay marka qaybta dad kala gelina ayadana ama khamiiska ay xiran lahayd ama cabaayadaada oo kale waxaas ay kaga faa'iidaysan kartaa marka waxaa kaloo ayadana aan ka marnayn ahayna waxay tahay waa kuraastii lamaanaha ahay waxaa loo isticmaali karaa restaurantiyada loo isticmaali karaa waxaa loo isticmaali karaa wariyaasha isticmaali karaa oo wareysi ku qaadi kara adig kolba saa u isticmaal siday kugu xiran tahay laakiin waa laba kursi iyo miisu ka kooban yahay marka alaabta ahayna ayadana oo kale waxaan ka marnayn ayadana waa qadadii waaye qadadan waxaa waaye waa turki waaye waa qada 6 kursi ah kursigiisa ujeedid waa kana hoos biru ka yahay softigiisa fadhigiisana jileec waaye fadhi waxaa haddaa fadhiisa intaa ku qadinaysa ma dareemayso wax daala marka waxay ka mid tahay ayadana qadooyinka hayno waxaa barnaamijka kaamirada gal ganacsi la hadlay Saciid Cabdikariin oo ka tirsan xafiiska xiriirka dadweynaha ee Diamond Furniture wuxuuna inaga warbixiyay waxyaabaha ay bulshada u qabtaan waran Saciid soo dhawow bal waxaa nooga warbixiysaa waqtiga Diamond Furniture la aasaasay iyo asbaabihii keenay in Diamond Furniture la aasaasay ilaa ku dhawahay kaamirada gal ganacsi Diamond waxaa la aasaasay 1 August magaca almaasa ku bilawnay mushaakilii arqalad soo wajahda awgeeda waxaan si toos ah u hirgalay magaca Diamond 1 August 2015 sababihii loo aasaasay Diamond Furniture waxaa ka mid ah ayadoo ay ka jirtay suuqa baahi furniture alaabta ahayno waxa waaye alaab furniture intuu ka kooban yahay ka kooban haddii ahaleed agab xafiis ama agab guri agab xafiiska sida kuraasta oo kale xafiisyada fistirada oo kale waiting chairka oo kale haddii ahaleed meeting oo kale jiifka hadda dhankiisa soo baxa asana waxaa haynaa jiifaf haynaa oo kala duwan ayagana iyo alaabo fadhi iyo kuwa maacuunta marka qadooyinka hadday tahay kuraasaha lamaanaha haddii ahaleed furniture intuu ka kooban yahay alaaba ahayno waxaa hadda dalka ku sameynaa oo kale jira fadhiyo loo galo dalka ku sameyno way jiraan laakiin alaabaha inteeda kale alaabaha xafiiska oo kale iyo jiifafka iyo alaabta qadada waxaa ka keenaa dibadda ka keenaa labo dalab bay nooga yimaadaan China iyo Turki labada meel bay nooga yimaadaan soo dhawaada dhilaa Diamond Furniture waxay bixisaa markaad ka iibsatid alaabteeda in ay guriga ku soo deliver gareyso si bilaash ah alaabta ku xirto guriga goobta ganacsi lagu keeno ama gurigaaga in meel lagu keeno alaabtaada kaga iibsata u baahan tahay in lagu geeyo lagu xiro oo haddii gaari xagiisa ahaa leedana si bilaash lagu keeno waxa loogu soo hagaagi karaa waxaa leenahay 4 xarun leenahay xarun waxay ku taalaa Banaadir xarun waxay ku taalaa Makka al-Mukarrama xarun waxay ku taalaa Abi Hurayra xarun waxay ku taalaa Khalifa telefoonada idin reebena shashada xagga hoose idin soo dhigi doona insha Allah
adna daawade jaaniskan oo kale way ku siinaysaa gal ganacsi haddaad leedahay goob ganacsi sida carwooyinka hoteelada maqaayadaha iyo supermarketyada iyo goobaha bixiya adeega bulshada sida isbitaalada iyo goobaha waxbarashada. guud ahaan maanta halkaas ayaa ku soo koobaynaa barnaamijkeena kaamirada gal ganacsi oo idinkaga imaanayay Diamond Furniture xarunta ay ku leeyihiin Banaadir. inta barnaamij noocan oo kale aan ku kulmeyno waxaan idinkaga tageynaa nabadgelyo.